iyada oo toddobaadkani bilowgiisa gudoomiyaha degmada Garbahare ee xarunta gobolka Gado laga hor istaagay in uu ka dhoofo garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle ayaa wararku sheegayaan in weli loo ogolaan in uu ka dhoofo Muqdisho. gudoomiyaha safarka laga hor istaagay Imaan Cadow Kaarshe oo waraysi siiyay BBC-da ayaa sheegay in ilaa hadda aan loo sheegin sababta loogu diiday in uu dhoofo Garbahare. dowladda federaalka waxay goor hore sii horeysay muddo maalmo ah xayiraad saartay duulimaadyada tagay Kismaayo inkastoo markii dambe la fasaxay. gudoomiye Imaan Cadow Cali Kaarshe waxa uu warramay wariyaha BBC ee Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan. waa run weeye garoonka la iga celiyay anoo raba inaan safar u aado xafiiskaygii iyo degmadii aan xukumay maalmo aan ku joogay halkan arrimo gaar ahaaneed oo aniga shakhsigayga ku saabsanayo caafimaad qoyskayga iyo anigaba aan ka mareynay isbitaal iyo abaartii dhibaatooyinka ka jira degmada Garbahare oo aan xildhibaanada iyo odayaashii waxgaradka halkan joogay iyo dawladda ama wax ka qabataa lahayd oo kala hadlayay kadib markay ii dhamaadeen oo aan safarkaygii ugu noqonayay xafiiskaygii iyo deegaamkii aan ka soo jeeday waxa dhacday garoonka galaya in ay wiilal askaruhu ii diidaan inaan diyaaradda raaco oo ay iga soo celiyaan waxay iigu sababeeyeen haatan oo ay ii sheegeen oo dambiyo oo iyo kiis oo aan galay oo ay qanciyaan wali ma hayo haddaan iriyaa ay haystaan waxay ugu yiraahdeen anagu waxaan nahay xafiiska nabad sugidda ee garoonka amarkana waxaan la ka siiyay xafiiska naga sareeya oo nabad sugidda inaadan bixin oo bixitaanka u fasaxnayn baana nala ku amray ma baxay sidii magaalada ku noqo ilaa hadda cid ka tirsan dawladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo oo aad la hadashay in badan baan isku dayay inaan ogaado dadka ay haysta kulli qofka ay haysta wali ma aanan helin waxaas lagu haystaa kiis aan la ima dhihin dadka waa la xiri karaa waa xeer iyo sharci caalami ah weeye oo adduunka oo dhan ku dhaqmo in qof la xiro laakiin waa in laga qanciyo waxa lagu xirayna ay wax cad yihiin waxa Allah ya waxaan reestada ku ahay hadda ma garanayo oo la ii soo celiyay xorriyadeydii iyo safarkaygii iyo mas'uuliyadii aan hayay intabana in lagu xadgudbay baa ii muuqata nabadgelyadeyda iyo maxaan ku iraahdaa noloshaydana hadda aysan mid caadi ahayn ee ay khatar tahay oo dharkaygii iyo boorsadaydiina hadda aan haysanin iyo meel ay jiraan noloshayda iyo maxaan ku iraahdaa amnigeygana meeshii aan ku seef gareyn lahay oo aan u socday hadii la iga celiyay meel kale oo aan jooga aysan jirin xafiis iyo haysta iyo cid ila soo xiriirtay iyo dantaas aan kaalena wax ay yirina ma jiraan xadgudubkaas ay ugu dhacay dabcan hadda ma xirnid oo nin hotel degan oo magaalada dhex degan baa tahay laakiin waxa inta walaba jirtay in socodka Kismaayo aan wanaagsaneyn marka qaarkood diyaaradaha la mamnuucay waxa ka mid tahay saraakiisha maamulka Jubbaland marka arrimaha khilaafka dawladda dhexe iyo Jubbaland armay la xiriirtaa safarka adiga laga reebay walaal aniga waxaan ahay gudoomiyaha degmada Garbahare Jubbaland waa dawlad goboleedka aan ka tirsanahay oo aan ka mid ka ahay mas'uul Jubbaland waan ahay laakiin khilaafka ka dhaxeeya madaxweynaha dawlad goboleedka iyo dawladda dhexe anigu xaakim kama ihi qofkii asagu garsoorka ka ahaa ma aanihi wadanku nidaam iyo dastuur buu leeyahay garsoor buu leeyahay laba gol uu leeyahay oo baarlamaan iyagaas maxaa la rabay maxaan ku iraahdaa wixii khalad ah oo ka jira in ay dhexdhexaad ka noqdaan ama u kala dacwo qaadaan ama ay qof ku gardaraan anigu muwaadin shaqo umad u haya oo xafiisar ah oo ofiiskiisa u socdo shaqadiisa laga xanimay baan ahay marka cududaar uma noqon karto waxa ka dhaxeeya dawladda dhexe iyo dawlad goboleedka aniga in la xanimo waxa ay ka tahay ma garanayo oo iyo waxay u noqon karto midna dabcan gudoomiyihii ayaa ka sareeyay gobolka Gado ee Muqdisho jooga wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalku way joogtaa hay'adaha kala duwan ee amniga ee magaaladan iyo federaalku way joogaan cid aad kala hadashay ilaa shalay walaal wasaaradda arrimaha gudaha aanu meel degan tahay ma aqaano dadka ka shaqeeyana ma garanayo qofna kama aan aqaano anu sidaad ogtahayba waxaan ka imid Garbahare oo noo jirta 500 kilomitir ayna ku hareeraysan yihiin dhibaatooyin badan oo maxaan ku iraahdaa dagaalamkii argagixisadu ay ku haysay hadii system ahaana dawladda xiriirka aan la lahayo aan ka tirsanayo tooska aan isugu xirnay waxay ahayd dawlad goboleedka Jubbaland marka ma garanayo ayaguna ilama soo xiriirin anna ma aanan arag mana aqaan hadda meel ay ku taalo wasaaradda arrimaha gudaha madaxdeedana qofna kama aan aqaano dawladdii waxaan ku iraahdaa ay xayirtay oo safarkayga iga joojisay waa dawladdeedii Soomaaliya oo dawladda dhexe ahayd hadii wax sharci ah la igu haystana waxaan rabaa oo aan ayadana u sheegaya ummadda kale la maqashiinaya in ay aan cadaalad helo oo sharciga la horkeeno dan dambiile hadaan dambiilahayna dadkii safarkayga iga xayiray cadaalada la horgeeyo oo maxaan ku iraahdaa iyaga tilaabo sharci ah lagu qaado haddana meeshaan ku xayirnay sababahaas aan ugu xayirnay maxaa xiga marka maxaad sameynaysaa waxaan sameynayaa waa la xayiray oo dawladda ay xayirtay baa ka warsugaya wax warqad ah oo la ii keenay iyo wax dacwad ah oo la yirkiis kaanad ku jirta iyo wax maxkamad ah oo xukuntay iyadoo aan la arag anoo qof mas'uul ah ayaa garoonka inta askar u istaagtay baa la yiri halkaan aad ka noqonaysaa sharcigana in lagu dhaqmo wanaagsan waxaan sharci ahayn baa igu dhacay cadaalad waxaan nidaam iyo dawladnimada ku fiicnayn baa igu dhacay
aad buu mahadsan yahay waryaheena Ibraahim Maxamed Aadan. dhinaca kale BBC ayaa isku dayday in ay jawaab ka hesho dhanka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya balse uma suuragelin. haddii mid ka mid ah dhegeystayaasheena fikirkiiska dhiibtay aan soo qabto, Iraad Aydiin oo jooga degmada Booq xayiraadda uu sheegay in lagu sameeyey gudoomiyaha degmada Garbaharey waa mid laga yaabo in ay la xiriirto baaritaanada lagu hayay mas'uuliyiinta maamulka hore ee Jubbaland ayuu waa fikirka dhegeystaha.